soo maray xaalad adag oo loo baahnaa in loogu gudbo si deganaan ku jirto shacabka Soomaaliyeed kuwa gudaha jooga iyo qurba joogta waxay muujiyeen dareen saameyn nagu wada yeeshay oo ay ku dalbanayeen inaan lagu sii fogaan khilaafka. waxaan ka qaadanaynaa isfaham waaga dhacay 10 weyn oo aan ugu nabadgeli doono khilaaf kale muddada nooga dhiman xilhaynta baarlamaanka tobnaad. waxyaabaha sababay dood sharciyeed oo ay ka mid tahay qabyanimada dastuurka xeroosaadka oo dib u eegis aan lagu samayn ilaa 2013 hay'adihii garsoorka iyo fasiraadda dastuurka oo qabyo ah qaarna aysan dhisnayn. go'aanada aanu qaadanay waxaa hubaala inaysan noqon mid garab ka qoslisa marka la raadinayo xal siyaasadeed. mar walba waxaa lama huraan ah in wax la isku miisaamo oo la qanciyo aragtida kala duwan. culays aad u weyn ayay ahayd guddoonka iyo madaxda sare ee dalka ka soo gaartay sidii xal loogu gaari lahaa. waan ku ammaanayaa dadaalkooda mas'uuliyadeed. waxaa suurtagal ah in aragtida lagu kala duwanaado, laakiin dhammaantaannada waxaan nahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. marka ay timaado arrin taabanaysa maslaxadda iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed, waxaa nalaga filayaa oo shacabka Soomaaliyeed ay naga filayaan go'aanada aan gaarayno inay noqdaan kuwa u adeegaya maslaxadooda. xildhibaanadii tanasulka muujiyey iyo xildhibaanada iskooda isu xilqaamay ee nagu hurdada beelay, waxaan leenahay dadaalkiina waan idinkaga mahadcelinaynaa. mas-uuliyad idin saaranay ahayd in ummadda Soomaaliyeed wixii la idin soo doortay qabataan ayay ka mid ahayd. sidaas oo kale siyaasiyiin iyo culamaa udiin oo fara badan oo waxaa jiray xikmad iyo qaboojin naga garab joogay, iyagana magaciina ayaan ugu mahadcelinayaa. kalfadhigan afraad ee golaha shacabka wuxuu ahaa mid marka la eegayo isfaham waagana kala dhex galay la dhihi karo wuxuu hakadgeliyey habsami u socodka howlihii baarlamaanka. hase yeeshee waxaa barbar taalla su'aal ah ma gudanay shaqadii naloo igmaday. waxaa sharaf noo ah inaan ku bogaadino xildhibaanada sharafta leh in kalfadhigaani ahaa midka ka soo wax saar badan marka la isu geeyo saddexdii kalfadhi ee ka horeysay. kalfadhigan waxaa la ansixiyey saddexdii kalfadhi oo aan soo dhaafnay waxaa la ansixiyey oo keliya waa 3 sharci. kalfadhigan waxaa la ansixiyey 4 sharci: heer sharciyeedka dhismaha hay'adda naafada, xeerka mihnadayaasha caafimaadka, xeerka xuquuqda siyaasiyiinta, kabidda miisaaniyadda 2018. kalfadhigan waxaa heerar kala duwan ee akhrinta la marsiiyey hindis sharciyeedka xaqsiinta ciidamada qalabka sida, xeroosaadka, wax ka beddelka sharciga hantidhowraha guud, hindis sharciyeedka naqshadaynta magaalooyinka, hindis sharciyeedka maamulka maaliyadda, warbixinta xisaab xidhka sanadka 2017, miisaaniyadda 2019. guuldarro waxay noqon lahayd
haddaan gaari lahayn 31 December 2018 iyadoo aan golaha uu xiran yahay sidaas oo kale annagoo guddiga maaliyadda miisaaniyadda khilaafkiisa aan la xallin xildhibaanada sharafta leh waxaan si xushmad iyo qadarin leh idinkaga codsanaynaa inaad ansixisaan miisaaniyadda 2019 inta aan la gaarin 31 December haddii kale 31 December oo maalinta berita ku beegaan waxaad dareemi kartaan waqtiga uu dhammaaday waana muhiim in miisaaniyadda la ansixiyo baarlamaanadii annaga naga horreeyey waqtigaana ma soo gaari jirin inta badan miisaaniyadoodii xilligii loogu talagalay ay ansixin jireen sidaa daraaddeed mar labaad xildhibaanada waxaan ugu mahadcelinayaa dadaalkooda dheeriga ah waxaan codsanaynaa mar labaad in miisaaniyadda si degdeg ah loo ansixiyo aad iyo aad u mahadsan tihiin haddana waxaan ku wareejinayaa guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda